si fiican u fiirsan muuqaalkan. Albaabkan waxaa ka soo galaya nin dhalinyaro ah. Derbigan ayuu imaan doonaa. Waa ninka wata macabiista iyo shaatiga. Macabiista hoosteeda waxaa ku jira jawaan yar oo ay ku jiraan wax aan la aqoonsan karin ama la arki karinba markaa. Derbigan ayuu isku dayi doonaa inuu ka tuuro. Mar labaad ayuu isku dayi doonaa, laakiin marka saddexaad waa uu ku guuleysan doonaa mishinkiisa. Derbigan marka waa saldhigga ugu weyn ama xabsiga dhexe ee Soomaaliya oo ay ku xiran yihiin kooxaha shabaabka, kuwa toogashada ku xukuman, kuwa xabsiyada kooban ku xukuman iyo kuwa xabsi daa'inka ku xukumanba. gaar ahaan marka qaybtan waa qaybta 221ka lagu magacaabo waxaa ku xiran oo kaliya al-shabaab. ragga toogashada sugay waliba gaar ahaan ragga xabsi daa'inka iyo ragga toogashada. ninkan marka sidan sameynaya waa kuma sawirkiisa waa kana. waxaa lagu magacaabaa Saacid. waa nin ka tirsan RBD-da ama taliishub ayuu hoostagaa. mar kalena waa tiimka dharcadka xabsiga dhex awoodiisa oo dhan haysto loogu talagalay in shabaabku il gaar ay ku hayaan cid kasta oo la shaqeysane shabaabka in iyagu markaa ay gacan bira ku qabtaan. laakiin nasiib daro marwo fertility center xarunta ugu fiican daaweynta cudurrada keena dhalmala'aanta rag iyo dumarka lagu dooro daaweyn qaliin iyo bacriminta IVF. waxaan kula jirnaa ilaa aan dhabta kuu saarno ubad ilaahay idankii. isbitooro dhan oo RBD-da ka tirsan oo loogu talagalay la dagaalanka shabaab inta lagu jiro gudaha xabsiga hadiiba uu la shaqeeyay raggii shabaabka ahaa banaanka dalabkooda uu keenay. waa kuma marka cidda la dagaalami doonto kuwa gudaha ku jiro ee ilaalin doona dhaqdhaqaaqooda. dal ay wada shaqeyn karaan sirdoonkiisa iyo si lamida kooxihii alqaacidada ee bulshada iyo dadka iyo dalka dhibaatada ku hayay. dal ay wada shaqeyn karaan goormee dalka noocaas ah amni buuxa uu heli karaa. haddii shabaabka banaanka jooga la helay rag saraakiil oo la shaqeynaysay haddana xabsigii gudihiisa waxaa loogu geeyay dalab nuuc walba iyagu ay doonaan oo ay banaanka ka rabaan. jawaankan marka waxaa lagu sameeyay dabagal. maxaa ku jiri karo? ma waxyaabo qarxo, hub, si lamida maraashiin ama wax fudud oo ay ramadaanka ugu talagaleen ayaa ku jira. waa isweydiinaysaa. Saacid oo ka tirsan RBD-da waa uu xiran yahay. muuqaalkan CCTV-da markii la arkay ninkan odayga ah waa lala kacay, waa la xiray. jawaankii si kasta oo ay sameeyeen taliya shub iyo saraakiishiisa iyo ciidankiisaba waa la soo saari waa. waxaa laga cabsi qabaa marka inuu hub ku jiray. kooxihii shabaabkana ay doonayaan mishini inay ka fuliyaan, dilal ay geystaan, halkaana sida ugu baxsan lahaayeen falkooda ayay ku jiraan. ninkan odayga ah saldhigga degmada Xamarweyne ayuu ku xiran yahay. kooxaha baarista ayaa ku wada su'aalo weydiin waxa ku jira jawaankaas, laakiin ilaa hadda afkiisa uu ka qiri la'aya waxa ku jira oo saxda ah. cabsi ayaa jirta marka. xabsigii dhexe caawa iyo labadii habeenii ugu dambeysay cabsi aan caadi ayaa ka jiro. jawaankan waxa ku jiray ilaa hadda saraakiisha booliska nabad sugidda raggii quseysay xabsigan way keeni la'yihiin. waa taa cabsida ka jirta waqtigan ay idin hadlayo daqiiqad kastaba in weerar ay ka geysan karaan gudaha xabsiga isla shabaabkii xirnaaba. dadka qaar waxay sheegeen waxaa halkan ku jira inay ahaayeen waxyaabo qarxo la doonaya in qarax laga geysto dabadeedna dadka lagu dhibaateeyo iyaguna markaa tiradii baxsan kartaba ay baxsato. taasi ma suuragali doontaa marka? waa su-aasha haddana isweydiinta mudan. ciidamo cusub, ilaalo cusub, feejignaan cusub ayaa hadda ka dhex jirto. haddana feejignaantaas ma tahay mid guuleysan karto? sababtoo ah raggii saraakiisha, raggii dharcadka, raggii loogu talagalay la dagaalanka al-shabaab ayaaba la shaqeynayaba. waxaad maqli jirtay laba shabaab ay wada shaqeeyaan amaba askarta qaar oo wada laba kaarayaal. caawa ku tusa nin laba kaarle ah wejigiisa caadiga isagoo tuuraayaba waxaan la aqoonin ayaa halkan kusoo dhigay. waa kuma marka cidda qaadanayso mas-uuliyad darada ka dhex jirta xabsiga dhexe ee Soomaaliya. cabsi ayaa ka jirto. maxaabiista cabsi badan ayay dareemayaan. daqiiqad kastana waxay fili karaa inuu qarax ka dhaco iyo si lamida inuu weerar ka dhacaba oo ay geystaan kooxaha manaxayaasha ee dalkeena iyo dadkeenaba dhibaatada ku hayo. waa update-kii ugu dambeeyay oo aan kaa siinayo gudaha xabsiga.
la wadaag saaxiibadaada muuqaalkan mahadsanideen